السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي ميل بادونك كجوجتون وعيد السلام ولكن الدقيقة صور بعد ما أنتم حايدين هيا لايف جبر ليرادو مسيس أونسي أو لايف سون كعبتي عرفتي هنا اسكو ديشو لايف أي سون كعبتي مسكنين سون أي عنتي وحين ربتي إن استيشو فيديو غاسيتي محاكا جور مرمبا ما بيمبا sidee wax u jiraan haddaan isla fiirsanayna asxaabay horta waxaa ku qoran gabadha nin aan baahidaada dabooli karin oo mixnad ku bahdilayo haddii alle qoorta kuu geliyo adoo uur 9 bilood leh suncabe subxaan allah iminka waa qaali mrs unsi live sun ku cabtay ninkii ka tagay alloo badbaadi nolosha nin lagu mahiro okay ninkii yaa ka tagay waxay isku dayday inay isdisho aan isla fiirsano ويستيل الرواية كان أسكول عندي أصابة كنين كاسن أسكول كنين كاسن عبران حامل أنا بيش سجارة أي بنات بيش سجارة قلبي يا واي أباك وقرع وسوي ما هذا شيء سعدي هابا دي سعدي هاي يقرأ فريتان سكدافكم فلاس وصاحكم سعدي ولا سعدي سعدي وبا يقرأ سعدي sidaa u jeediin gabadha laafay ku jirtaa lifekeena rabtaa inay isku disho aniga waxaan ka leenahay keliya waxay aniga micnaha noola tahay waxyaabo oo been kama sheegayno kumana xadgudbayno ma fahanteen gabadhaanay life ku jirtaa waxayna sheegaysaa inay isdiil rabto oo sagaalkeedan oo buuxsami rabo uuray leedahay ninkii yaa ka tagay way isdagaaleen si rabaan ha ku kala tagaan ninkii yaa ka tagay horta qofka bani'aadanka ah dadka isdilaayo waa dad nacsiin ah waa dad ilaahay ka furtay qofaa isdilay haddaa maqashid waa qof ilaahay ka furtay ilaahana iga magangeliyo marka fiiri horta wax walba runta in laga sheegaa fiican qofka haddii ay ka go-do inuu isdilo inuu life soo galo oo dhaho aniga waa isdil rabaa kaniinigana cuni rabaa fikir adiga ma kula tahay aniga qofka haddoo asiga ay ka go-day inuu isdilo inkastoo ay dembi ay tahay laaf ma soo galo asigoo la ogeynin oo hoos iska dila
laakiin gabadhaani life ay ku jirtaa waxayna rabtaa inay isdisho. Haba isdishee ma xumee, iyadoo lifekii ku jirto albaabka loo soo garaacay. Mana arkin gabadha meel ay telefoon ay kula hadlayso ay u sheegayso qof inay isdil rabtona kumaana arkin lifeka. Dadaa u soo garaacay albaabka. Maxaan dhihi karnaa dadkaas albaabka soo garaacay iyo gabadhan isdilkeeda iyo dadkaas imaanaya maxaa kulansiiyey? Timirba lafaa ku jirto. Gabadhan albaabka loo soo garaacay. Aniga ma ogi sheekadaasiiti, waa sheeko lala yaabo. Qof life ku jiro oo rabo inuu isdilo, haddana albaabka loo soo garaacay. Dadkii badbaadi laa ilaaha wax badbaadiye albaabku soo garaaceen. Ay ka furtay kaniinigana ay cuntay. Marka dadkii soo galay intay oo macnaha lifeka ay ka bixi lahaayeen, ay dimi lahaayeen, oo gabadhii oo macnaha la dadaali lahaayeen, midaaba lifeka iska soo fadhiistay. War gabadha waa badbaadineynaa, bal soo qabso lifeka. qof oo rabo inuu lifeka oo sheeko iska galebo, lifeka sheeko iska galay. Ani ahaanteedii deeqo fiiri, nolosha dhib walbo kula soo wajahdo, dhibaato walbo ay ku qabsato, adigoo hooyo ah uur la, oo 9 bilood oo galay, dhibaatada ku kalfayso iyadii cunugeeda inay isdisho. Ma ogi ani sheekadaas ma fahmin, ma fahanteen? Waayo dad waxaa jiro xitaa waceelka aan la dili karin. Hooyo wax dhashay waa laisla yaqaanaa. Iyada hadda ninaaba qabay oo uurka nina aabbow leeyahay. Dhib walbo ayaa lasoo gudboonaado. Waxaa la fiicneed dar alle inay iskaga cafiso, iskaga dulqaadato. Cunugeedana hadduu u dhashteen ay iska korsato, dhib walbo ay ku korsato. Waayo cunugan beri wax u tarayo. Ma fahanteen? Aniga sheekada isdilka iyo gabadhan sunta cabaysa waxaa igala weyn qoftaan rabto inay isdisho, live soo gashay ee dhehayso aniga waxaan rabaa inaan isdilo. Taasna waxaaba igaga sii daran dad inuu imaaday albaabka usoo garaacay oo imaaday badbaadiyeen. Aniga ma u malaynayo inay run tahay. Haddii ay run tahayna gabadhaas ilaahay ha badbaadiyo, ya ilmaheedana ilaahay wax kama gaarsiiyo. Laakiin ani qof life soo galayo oo inuu isdil rabo oo sheegayo weli waa ay dhiman tahay. Waa markii ugu horreysay aan arko. Marka adi ahaan oo daawanayo maxay kula tahay? Sax baa ma qalad baa? Adigoo 9 bilood galay misdil lahayd. Haddii aad isdilaysidna life ma soo gali lahayd. sheekadaas waa sheeko la yaab leh. Marka asxaabay videogaas idiin hayay aad iyo aad u mahadsantihiin. Haddii tahay markii kugu horeyseen waxaan ka codsanahay inaad live-ka subscribe channelka subscribe ay ii saartid. aad iyo aad ugu mahadsan tahay. waa idin salaama insha Allah taala. gabadhaasina hadday run ay tahay ilaaha badbaadiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.